ku soo dhawaada bartaanu ku leenahay youtube-ka ee Saami Show. youtube-kana dadka cusub tahay fadlan subscribe-ta noo saar kambeelkana furaysa ay kusoo gaadhaan warbixinaha cusub. hal sano ka hor xaaskayga ayaanu kala tagnay. waxay ahayd naag aad iyo aad u cayilan. waxay kaloo lahayd calool aad isku dhacsan. sidoo kale timaheeduna waa ay yara adkaayeen. dhar aan soo jiidasho lahayna waa ay soo gashan jirtay. waxa aanan aad iyo aad u dhiibsan jiray la joogitaankeeda iyo agfadhigeedaba. waxaan ku odhan jiray fiiri noocaad u taallo, noocaagan oo kale lama sii joogi karo. waxaan ka soo tegay wiilkayga oo hooyadiis ku dhahayo hooyo aabbe intuu u socdaa. waxaan bilaabay inaan shukaansado gabadh kale oo tii hore ka qurux badan ka fiican. sidoo kale dalxiis ayaan u wadi jiray si aan jawi fiican ula qaato. kadib shaqadii ayaa layga soo eriyey, shaqadaasoo aan lacagta ka heli jiray. gabadhiina sidaa ayaa ay igaga tagtay. bal ninkan u fiirso, duurtaba nafsiga ayaa ku soo socda. waxayna igu tiri lama noolaan karo qof aan shaqaysan misena lacagaan haysan. markaas kadib waxa ay soo wacday xaaskaygii hore. waxayna igu tiri cisbitaalka imow, wiilkaagii ayaa xanuunsan. markii aan tegay cisbitaalka waxaan arkay xaaskaygii hore oo aad u qurux badan. waxaan ogaaday in markii hore ay nafteeda ka hormarin jirtay tayda iyo tan wiilkayga. waxaan ogaaday jacaylka ay ii qabto awgiis inay nafteedii dhammayd ilowday. sababta ay la cayilaydna ay tahay waxa ay ku mashquulsanayd hawsha guriga, halka dhiggeeduna ay ka aadi jireen jiimka. sidoo kale daryeelka wiilkeenna. waxay sidoo kale ku soo koobtay nolosheedaba farxadda qoyskeenna. markii aan booqday wiilkayga kadib waxaan ku soo laabtay gurigayga. waxaan dareemayay xishood iyo shallayto. aad ayay u adag tahay inaad hesho xaas sidan oo kale kuu jecel. hal bil kadib ayaan arkay quruxdeedan waa ay sii siyaadisay, xitaa waaban garan waayey. jacaylkaan u qabayna wuu sii laba jibaarmay. laakiin nasiib darro mar hore ayaabay nin kale xaaskiisa noqotay. maxaan iska khasaariyey qoys qurxoon anigoo fiirinaya qurux iyo wax maalaayacni ah. dhammaadka sheekadan anigu waxaan ciwaan uga dhigi lahaa gabadha quruxdeedu waa inta aad jeceshahay oo keliya. bal adna sheekadan ciwaan u soo sameeye. waxaad sheekooyin kuwan ka xiiso badan kala socon doontaa bartaanu ku leenahay youtube ee Saami Show.